hooyaday waxaa u yimid ninkii dalaalka ahaa wuxuuna u sheegay inuu guriga u soo helay qofka tagta oo aad weliba u fiican isna ninkii cabdulaahi ahaa oo ay isku qalayeen wuxuuna kaloo u sheegay in ay ayadu hadda laga doonayo inay la kulanto si ay u kala saxiixdaan warqadaha guriga oo ay u hortagto dadka markhaatiga ah. hooyaday oo walwalsan ayaa ku tiri dadka armay ninkii cabdulaahi ahaa warka u gudbiyaan oo dhibaato ay iga timaadaan. ninkii ayaa yidhi taasi horay ayaan uga taxadiray oo ninka raba inuu guriga kaa iibsado ayaan u sheegay isagaana qaban qaaday inuu amnigaaga sugayo oo aan wax ku soo gaari doonin. kadib waxay soo aadeen halkii lagu balansanaa oo warqadaha lagu saxiixayay misna ay joogeen dadkii markhaatiga ahaa. markii la kala saxiixday ayaa la soo sheegay ninkii cabdulaahi ahaa inuu dibadda ku sugayo hooyaday oo uu rabo inuu dilo lacagtana ka qaato. hooyaday halkii ayaa lagu qariyay. annagana ninkii dalaalka ahaa iyo niman xabsita ayaa naloo soo diray si ay inoo kaxeeyaan, balse aniga ayaa ka diiday inaan guriga ka tagno sababtoo ah dardaarankii hooyaday ayaa ahaa ilaa ay ka timaado in aan guriga aan ka bixin. xilligaa ma uusan jirin wax taleefon ah. raggii waxay ku qasbanaadeen inay nala joogaan oo ninkii dalaalka ahaa lagu yidhaahdo u soo sheeg hooyadu ilmihii inay diideen oo lasoo kaxni waayey. ninkii markuu arrinka sidaa u sheegay ayaa waxaa soo raacay odayaashii iyo hooyo waxayna yimaadeen gurigii. kadib odayadii deegaanka ayaa tashi u fadhiistay. hooyo ayaa la weydiiyey iyadu waxa ay damacsan tahay. hooyo waxay ku tiri waxaan rabaa inaan u safro Kenya ilmahayga si ay ilmahayga u helaan nolol fiican, sababtoo ah haryaha qaxootiga waxaa laga helaa waxbarasho iyo daryeel caafimaad. odaygii guriga naga gatay ayaa yidhi xaaladdu waa sidan ee bal ka waran haddaan ku siiyo lacag aad ku safarto oo markaad Dhobley tagto inta kale aan kuu soo xawilo. maadaama ay goobtii markhaati joogaan oo hooyo